بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan halkan ka bilaabeynaa mowduuc aad iyo aad u muhiim ah mowduucyada taaganna ka mid ah mowduucaas magaciis waxa weeye alsiyaasatu sharciya siyaasadda islaamka iyo siyaasadda ama diinta iyo dowladnimada mowduucan waxaan u bilaabeynaa sababaha nagu kalifay ka mid ah annagoo casharo badan oo tixanayaala ka samayn doono dad fara badan ayaa waxay aaminsan yihiin ama aad ka dareemaysaa hadalkooda maadaama mar kasta aysan muxaadarooyin joogto ahoo siyaasadda xagga shareecada ku saabsan aysan arkin ee ay siyaasiyiintii caadiga aha kaliya ka maqlaan siyaasad waxa la yidhaahdo ayay waxay u aamineen in shareecadu ay cibaadada iyo guurka ku kooban tahay ee aysan dowladnimadkii iyo noloshii kala habayneyn dad fara badan waxaa laga yaaba siyaasiyiin fara badan ama qeyb ka mid oo dadka hadba siyaasadda kusoo biiraya inaysan waxba shareecada aysan ka dhigan oo aysan fiqhu siyaasa asharciya aysan waxba ka garanayn markaas ayaa waxaa arkaysaa ayagoo diintii iyo dowladnimadka kala fogeynaya mar kastaba oo diintu inaysan calaaqa iyo xiriir la lahayn u arka dowladnimadka sidii dowladdii calmaaniyada ahayd siyaasiyiin sidaa darteeda waxaa maqlaysaa siyaasiyiin fara badan oo mar kastaba markii ay hadlayaan dhaliilaya shareecadii ama dhaleecaynaya ama liidaya oo maaragtay wax oo aan loo baahnayn ama aan waqtiga la jaan qaadi karin ama casri ahayn ay tilmaamayaan marka taasna waa qodob kale waxaa keenayna dadka sidaas yeelaya badana waa kuwa aan wax ay diinta islaamka ka akhristeen la aragoo laga yaabo xataa hal cashar inaysan u fariisan maalmaha ka mid a haddana uu rabaa qofku inuu ka turjumo oo yiraahdo anigu siyaasadan aan soo barta ama aan ku dhex jiraa tana aqaanaa laakiin tan kaleona aqoonoo diintii islaamku say siyaasadda uga hadashay yacni ma jirto maadaama aanu aqoon yani wax ka dhigan aad ka fahmaysa hadalkooda waxaan kaloo u duubaynaa mowduucan maadaama dad fara badan siyaasadda ay kusoo biiraan sanad kasta waxaan ilaahay ka rajaynaynaa qeyb ka mid a inay dhageystaan ayna ilaahay uga cabsadaan wixii dulmi iyo cadaalad darro iyo mas-uuliyadda saaran in ay dareemaan ee diinteennu ay saartay mowduucan dad badan oo culamo waa ka hadleen laakiin haddana soomaalida dad oo xalaqaad tixano ah oo joogto ah ka sameeyey oo yacni isdaba joogo bilow ilaa dhammaad leh ma jiraan marka insha allahu tacaala laakiin dad badan oo culamo ahoo qeybo kala duwan iyo mowduucyo markaas taagan iyo kaga hadlay waa jiraan ama kitaabo gooni akhriyey oo siyaasada waa jiraan iyagana laakiin brogram diyaarsan weli koleyta aniga ima soo marin dad ka hadlay marka waxaan rabnaa tixane dheer oo habaysan oo maaragtay siyaasaddii doorashadii shuruuddii madaxweynaha shuruuddii wasiirka macnaha wasiirka fiican wasiirka xun mas-uuliyadaha qeybahooda kala duwan ilaalinta hantida guud dhaqaalihii maxaa laakiin hanti guud la yiraahdaa waxyaalo fara badan ayaa insha allahu tacaala cadaaladii aan ka hadli doonaa kelimadan siyaasadda la yiraahdo waa kelimo oo soo aroortay shareecada kusoo aroortay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixu lbukhaari iyo muslim ku yaala ayuu wuxuu leeyahay kanat banuu israa'iila tasuusuhum alanbiyaa kulamaa halaka nabiyun khalafahu nabiy wainahu laa nabiya bacdii wasatakunu khulafaau fatakthur wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam reer bani israa'iil waxaa siyaasaday jiray ambiyadii kelimadaas markii ay culammadu sharxayaan waxay leeyihiin imaamu nawowi oo kale sida saxiixu muslimka sharxiis markuu ku sharxayo ay yatawallawna umuurahum kamaa tafcalu lumaraau walwullaatu biraciya waxay ambiyadu tawali jireen oo hogaanka u qaba jireen arrimahooday tawali jireen yacni madax ayay u noqon jireen sida dadka madaxda ah ee hadda jooga ay shacabka u hogaamiyaan ayaa ambiyadooda u hogaami jireen maxaa yeelay alsiyaasatu alqiyaamu cala shayi bima yuslixu siyaasadu waa shaygii oo loo istaago waxa hagaajina loogu istaago marka shareecadii yacni ambiyadii
ilaahay ee reer bani israa'iil loo soo diray ayaa diintii iyo dowladnimadkii iyo hogaankii ayagaa u hayay ay in marka yani ambiyada ayaa markastoo ilaahay subxaanahu watacaala uu usoo diraya markii fasaad soo daahiro oo kala go' ku yimaadaba nebiyaa loo soo diraya markaasuu toosinayay ay anahum kanuu idaa dahara fiihim fasaadun bacatha allahu lahum nabiya markastoo fasaad iyo burbur iyo fuxsho iyo xumaan iyo macaasi iyo kufri uu kasoo daahiraba ilaahay nebigu usoo dirayay yuqiimu lahum amrahum wayuziilu maa gayaruu min axkaami tawraa nebigaasoo arrintoodii toosinaya dib u habeynaya dhaqan celinaya kitaabkii towraad waxa ay bedeleenna oo ay ku dareenna ka tiraya ama ay bedeleen hagaajinaya waxaa ku sugan marka xadiidkan ay leeyihin culammadu ishaaro ama tilmaan muujinaysa ilaa annahu laa budda lilraciyati min qaa'imin biumuuriha qasab waxaa ah dadka inay helaan qof u taagan arrimahooda madax ah yaxmiluhaa cala ariiqi alxasana wayunsifu lmadluuma min aldaalim waa in la helaa qof madaxa oo u taagan oo ummadii ku haga wadada toosan daalimkiina ka qabta dadka ka qabta ummadda kii madluumka ahaayoo la dulminayo u heliya cadaalad ummadda ku haga xadiidkaas marka wuxuu tilmaamayaa ambiyadii ilaahay inay dowladnimadka iyo diinta iyo waxa dhan ummadda u hogaaminayeen markaas waddo saxa ay ku hagaajinayeen annagana waxaa nasoo hogaamiyey oo dowladeeni soo aasaasay khalqiga ilaahay kii ugu khayr badnaa nabiyullaahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ayaa dowladtii ugu khayrka badneed noo soo aasaasay oo dastuurkeeduna yahay dastuurkii ugu khayr badnaa oo aan u baahnayn bedelid iyo wax ku darid iyo wax ka jarid iyo wax ka dhimid waxa weeye kitaabkeena qur-aanka ah oo munazalka ah alladii yatanaasab likulli zamanin wa makaan oo waqti kasta iyo meel kastana u qalma xataa yaritha allahu alarda waman calayha marka shacabkeeduna wuxuu ahaa lagu aasaasay khayru shacab wa khayru ummah kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas waxa weeye calamkeeduna ma dhacayo ilaa qiyaami saaca waxa weeye jinsiyadeeduna waa islaam baasaboorkeeduna waa tawxiidka marka dowladdaas ayaa nabigeenu nooga tagay caleyhi salaatu wasalaam wax kasta oo foolxumo ah wax kasta oo qalada wax kasta oo nidaam darro oo ka yimaadana waa annaga shaksiyadeenna iyo dhaqan xumadeenna iyo raacad la-aanteenne waxa weeye markii la raaco wadadaas uu nabigeenu nooga tagay caleyhi salaatu wasalaam ilaahay uu noogu soo dhiibay wax ka qurxoon ma jirto nolosha bini aadamka ha ahaato farta oo dhaqaajisidna meel aan shareecadeenna xukumin ama aysan horumarkeeda aysan ka shaqayn ma jirto ogow ama ha ogaan waxa weeye diinteenu neef yar oo waxaad u baahan tahay oo aysan ka hadlin ma jirto ama si cad ha oga hadasho ama ha laga soo qaato siyaasaddu macaani dhowrahay leedahay macnaheeda waxaa ka mid a sidii aan hore usoo sheegna alqiyaamu calaa shay bimaa yuslixu shaygii oo loo istaago waxa hagaajinaya sida darteeda waxaa la yidhaha qofka madaxda ah saasa alwaali alraciyata ay amarahum wanahaahum watawallaa qiyaadatahum qofkii madaxda ahaa wuxuu siyaasadeeyey hogaamiye dadkii yacni hogaanku u qabtay wixii xumaayu ka reebay wixii fiicnaana waa uu faray markaasa siyaasaddu waxay tusinaysaa luq ahaan cala altadbiiri waalislaaxi waltarbiya yacni shayga oo la maamulo la hagaajiyo la tarbiyeeyo macnaha caamka ah oo dowladda iyo saldanada la xiriiraahina waxa weeye istislaaxu lkhalqi biirshaadihim ila ariiqi almunaji fi lcaajili waalaajil wa tadbiiru umuurihim khalqigii oo la hagaajiyo oo lagu hago wadadii ay ku badbaadi lahaayeen aakhiro iyo adduun iyo arrimahoodii oo la maamulo sidaas wey siyaasaddu markaasuu imaam albujayri markuu tacriifina wuxuu leeyahay alsiyaasatu islaaxu umuuri alraciyati wa tadbiiru umuurihim siyaasaddu waa in bulshada ama shacabka arrimahooda la hagaajiyo oo arrimahooda loo maamulo weeye oo waxay ay ku badbaadi lahayn aakhiriya adduun lagu hago weeye iyo horumarkooda dhaqaalahooda caafimaadkooda maaragta dhan kasta waxbarashadooda diin iyo dunyaba wixii anfacayay ummadda in lagu hago kitaabo badana culummadu siyaasada ka qoreen waxaa ka mid ah magacyada ay isticmaalaan alaxkaamu asultaaniya alsiyaasatu asharciya alsiyaasatu almadaniya mawaadiic fara badan ay ka qoreen ciwaano badanna waa adeegsadeen oo alimaamatu alkubra iyo alkhilaafa iyo waxyaalahaas oo dhan waana noo imaan doonaan meesheeda ayaan ugu tegi doonaa
sida darteeda marka cilmu siyaasa markii la tacriifinaya waxaa tacriifkiisu yahay huwa alcilmu aladi yucrafu minhu anwaacu الriyaasaat wالsiyaasaat alijtimaaciya wاlmadaniya. waa cilmiga lagu garto madaxtinimada qaybaheeda, ha ahaato madaxweynihii, ha ahaado ku-xigeen ama ra-iisul wasaare ama wasiir ama agaasime ama yani nuuca qof kasta bosishinkiisa iyo qayb booska uu joogo waxaa lagu garta weeye, iyo siyaasadaha qaybahooda, tii bulshadii, tii rayadkii noocay tahay, tii military, wax cilmiga lagu garta weeye, iyo axwaasha siyaasada oo ah min axwaali الsalaaطin wاlmuluk wاlumaraa waahli اlاxtisaab wاlqaضاء wاlculamaa wazucamaء اlamwaal wawukalaa'i bayt اlmaal waman yajri majraahum. iyo waxaa kaloo lagu gartaa siyaasadu waa cilmiga lagu garto xaaladaha dadka madaxda ah, ama ha ahda madaxweyne caadiga ama boqoradii ha ahaada ama amiiradii ha ahaadeen ama dadkii ahlu ixtisaabka ahaa oo yani macruufka dadka farayeen munkarkana ka reebayeen, ama qudaadii qaadiyaalkii ama culamadii ama dadkii hanti dhowryaalkii, waxyaalahaas oo dhan, iyo qof kastoo xil haya booskiis waxa lagu garta weye. waxaa jira waxa la yihahda almaslaxa. maslaxadu waxa weye almuxaafadatu calaa maqsuudi sharci, sharciga ujeedkiisa oo la xifdiyo weye. sharciga waxaa jira waxyaala maqaasidu shariica la yidhaahdo oo qasab ay tahay in la ilaaliyo, mathalan ba oo diin kasta xataa soo ilaalisay, oo la yidhahdo alkuliyaat alkhamsa ama alkuliyaat asita la yidhaahdo. mathalan ba khamse markii aan idhaahno waa in diintii la ilaaliyo, ummadda diinteeda loo ilaaliyo, naftii la ilaaliyo, hantidii la ilaaliyo, caqligii la ilaaliyo, nasabkii la ilaaliyo. 6 markii la yidhahdana cirdiga ayaa lagu daraya. marka diin walba ayaa waxay soo ilaalisay dadka, yani intaas kuliyaadkaas, in dadku diintoodii laga ilaaliyo ridadii, naftii laga ilaaliyo dil, hantidii laga ilaaliyo dhac iyo xatooyo iyo wixii lamida, nasabkii laga ilaaliyo zinadii iyo wacalnimadkii, nasabki yani caqligii laga ilaaliyo daroogadii iyo khamradii iyo maandooriyihii, cirdigii laga ilaaliyo qadafkii iyo wixii lamida. waxyaalahaas ayaa ka mid a. xukumka takliifiga waxa weeye waxay aimadu leeyihiin siyaasadu waa inay ku socotaa fi xuduudi shariica oo aysan dhaafin. laa siyaasata ila ma waafaqa sharc. siyaasada ictibaarka lihi waa wixii sharciga waafaqa kaliya. haddaba waxaa jira waxyaalo la yidhaahdo yani asaasiyaad oo siyaasadu ay leedahay. asaasiyaadka kahor waxaan ka hadlaynaa aqsaama siyaasadu leedahay. siyaasadu waxay leedahay aqsaam ama qaybo. qaybaheedu waxa weeye waa siyaasa dhaalima, siyaasad dhaalima ah, iyo siyaasa caadila. siyaasa dhaalima waa midda ku salaysan xadgudubka, cadaalad darada, boobka, qabyaalada, qaraabakiilka, kooxaysiga, ninjeclaysiga. qof kastaahi uu markii madaxweynihii yani qabiilkiisa hadduu u eexdo, hadduu kooxdiisa u eexdo, haddii qof kasta oo xil hayaahi uu qabiilkiisa soo aruursado, uu soo aruursado, yani siyaasad dhaalimaha leeraha waa mid cadaalad daro ku aasaasan. siyaasada kalena waa siyaasa caadila ah oo ujeedkeedu yahay xaqa inay muujiso, dulmiga ka hortagto, ahlu fasaadka, ahlu musuq maasuqa, corruptionka iyo musuq maasuqa ay ka hortagto, cadaalad daradii ka hortagto, qayaanadii ka hortagto, boobka hantida ka hortagto, qaraabakiilkii ka hortagto, wixii xumoo dhan inay ka hortagto, ummadda ay ku hagto wadadii saxda ahayd ee keenaysa isjacaylka, keenaysa kala dambeynta, keenaysa fawda la-aanta, keenaysa maxabada iyo dadku inay dalka jeclaadaan. marka siyaasada caadiladahu min ashariica, shariicaday ka mid tahay, calimaha man calimaha wajahilaha man jahilaha. waxa laakiin maanta madax fara badan ay siyaasa u yaqaanaan xagga diinta ayagoo raacaya hawadoodii iyo aaraa'doodii, waxa weye ee aan cilmi ku salaynayn. laysat siyaasa sharciya ma ahan, walaysat bishay. waxaasi waxa ictibaar alla agtiisa kalena ma ahan. hogaankii saxda ahaa, siyaasadii nabigeena nagu soo hagawey calayhi salaatu wasalaam, siyaasadii khulafaa oo raashidiin ay ummadda kusoo hageen iyo aimada islaamka ahaa ee dadka ay diintooda iyo dunyadooda u hogaaminayeen ayagoo ku salaynaya xaqa iyo kitaabka ilahay ku salaynaya. laakiin markii dowladnimadkii ballaartay ayaa waxaa soo baxay alfaslu bayna asharci waasiyaasa, in la kala saaro shareecada iyo siyaasadda in la kala saaro ayaa soo baxday. maxaa yeele dadka madaxda ah ayaa waxay bilaabeen inay ku xukumaan
hawadooda inay ka xukumaan ayagoon kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka midna aan u laabanayn. haddaba qofka madaxdaahi haddii uu xusnu siyaasa la yimaado, qofka madaxdaahi qof kastaa wuxuu ogyahay inuu waqti yar oo dhammaanayo uu xilka haynayo. hadduu waqtigaas siyaasad fiican la yimaado ee hoggaan saxa oo ummadii ku hago, waxaa xaqiiqo ah in oo siyaasadaas fiicani ay ummadda saameyn ku yeelanayso qalbigooda. maxaa yeelay xusnu siyaasa yanshuru alamna waalamaan fi anxaa'i albilaad. siyaasadda fiicani amni iyo amaan iyo nabad iyo isjacayl iyo wanaag ayay ku faafisaa wadanka daafihiisa. markaas ayaa dadku xasilayaan. dadki waxaa imaanaya markaas qof kastaa hantidiisa inuu aado, qof kastaa beertiisa inuu aado, qof kasta ganacsigiisa inuu aado, qof kasta waxbarashadiisa inuu aado. maxaa yeelay naftiisi waa u aamin, diinkiisa waa u aamin, daacadiisi iyo cibaadadiisi waa u aamin, waxbarashadiisii helayaa, wuxuu cuni lahaayuu helayaa, caafimaadkiiu helayaa. qof kastaa marka maxaa imaanaya inuu shaqadii uu ku takhasuso xaqa uu yaqaanay inuu aado. fatanmu tharwa, dhaqaaliha ayaa kacaya oo badanaya. wayacumu rakhaa, barwaaqa dadkii camiimaysa. wayaqwa amru diin, diinkuna waa xoogaysanaya. maxaa yeele qof kastaahi mar haddii uu ammaan haysto oo uu wuxuu cuno haysto oo wuxuu cabo uu haysto oo wuxuu xerto uu haysto oo caafimaad uu haysto oo waxbarasho uu haysto, inuusan cidna dulmin ee alla caabudo ayaa fududaanaysa. marka qofka madaxdaahi hadduu raaco siyaasada sidii ilaahay subxaanahu watacaala uu jideeyey, ninka kursiga ku fariisanayahayna uu ku fakaro maalinka uu kursiga ku fariista in maalmo yar uu haynayo ee berri dhammaanaya, ee uu ama ka tegayo taariikh waarta ee ilaa qiyaamu saaca dadka islaamka ka sheekeeyaan uu ku biiro, ee wanaagga iyo ducada kaga taga, ama maaragtay uu ku biiro ama uu dhanka xun inta u fakaro uu maaragtay uu ku dadaalo afartaas beri inuu ka faa'iidaysto, laakiin uu ka tago taariikh waarta oo maaragtay ilaa qiyaami saaca la lacnado la habaaro. waxa weeye labadaas miduu soo gelaya inuu ilaa qiyaami saaca asaga iyo ilaa qiyaamo asaga iyo maaragtay ehelkiisa in taariikh xun loo qoro. qof kastoo madaxa soo mara nabigeenna sii tilmaamay calayhi salaatu wasalaam, sida axaadiis ka mid a ishaarayaan. xataa qofka oo hogaanka fitna ah nabi maxamed sii tilmaamay calayhi salaatu wasalaam, oo markii uu ka sheekeynayo xudayfa bin lyamaan allah ka raali noqdee wuxuu yihi wallaahi maa adri anasiya asxaabii am tanaasow, ilaah baan ku dhaartay ma ogi in asxaabtaydu ay halmaameen ama inay ishalmaansaynayaan. wallaahi maa taraka rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam min qaa'idi fitna, nabigeenu kama tegin calayhi salaatu wasalaam hogaamiye fitne oo maaragtay dadka ku hogaamiya colaad, dadka ku hogaamiya qabyaalad, dadka ku hogaamiya fitna diineed, dadka ku hogaamiya qablanimad, dadka ku hogaamiya dhac, dadka ku hogaamiyo musuq maasuq, dadka ku hogaamiyo dhib. qaa'idu hogaamiye fitna nabigu kama tegin calayhi salaatu wasalaam ilaa an tanqadiya dunya, ilaa adduunyadu ka dhammaato. yablugu man macahu 300, dadka la socdaahoo taageerayaashiisu ahuna 300 ay gaarayaan fasaacidan iyo wixii ka badan, ilaa qad samaahu lanaa bismih, nabigeenu calayhi salaatu wasalaam magiciisu noo sheegay, wasmi abiihi, aabihiis magaciisu noo sheegay, wasmi qabiilatihi, qabiiladiisa magaceedu noo sheegay. allahu akbar, sadaqa rasuulullahi. xadiidka sanadkiisa culamada qayb wax ka sheegeen, laakiin waa xadiid uu soo guurinayo imaamu abi daawuud uu soo warinayo. u fiirso, hogaamiye taageerayaashiisuba ay 300 gaarayaan, 300 ay gaarayaan taageerayaashiisu iyo wixii ka badan. nabi maxamed wuxuu sii sheegay magaciisa, magaca aabihiis, magaca qabiilkiisa. haddaad marka ummadda waxun ku hogaamisid, dadkaasaad ku biiraysaa ilaa qiyaami saaco. nabi maxamed uu kasii sheekeeyey magaca xun ka tagaysa qof kastoo madaxa ahow. hadda ma ahan inaad madaxweyne tahay kaliya, haddaa rabta wasiir ahow, haddaa rabta agaasimo ahow, haddaa rabta gudoomiye degmo ahow, haddaa rabta gudoomiye gobol ahow, haddaa rabta gudoomiye haddaa rabta maamul goboleed ahow. haddiiba aad intaasoo taageera leedahay aana wada xun ummadda ku hagtid, waxaad tahay qofkaas nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu sii cadeeyey. allahu akbar. marka haddii ninka madaxdaahi uu ku fakaro kursiga markuu fariisto, maxaad ka tegi doontaa? waqtigaas aad haysatid jannadiiad gada kartaa, naartiina waa gada kartaa. inaad ummadaas u istaagtid intii tabartaa ah ilaa aad kursigaas ka degtid
ama naftu kaa baxda inaad cadaalad ku hogaamisid waxaa xaqiiqa taariikh waarto ilaahay ka raali yahay yani jacaylka ilaahay jacaylka ummadda inaa helaysid iyo inaa istiraahdid intaas yar ka faa'iidayso haddaa istirahdid intaa ka faa'iidaysana waxa weeye ilaahay oo ku naca ummadoo ku lacnada taariikh xun ayaad ka tegaysaa iyo ciqaab oo kuu dambeeya waxa weeye hantida la boobo iyo waxyaalahaas taas waa mawduucyo waaweyn meel goonihan ku faahfaahi doonaa marka siyaasadda wanaagsan ummaddu qofkii wanaag ku maamulo waa jeclaadaan waa qalbigee quluubtaaba lagu dabeecadeeyey inay jeclaadaan ciddii cadaalad u samaysa laakiin qofkii dulmi ku maamulana ummaddu waa nacaan mana suurtagal ma ahan in oo maaragtay ay arrintaasi xaqiiqowdo haddii siyaasad saxa oo adag aan qofka madaxweynaha ahi la imaan oo ummadda arrimaheedoo dhan danaynaysa ha yaraato ha weynaato siyaasad ka fakeraysa ummadda khayrka jeclaysiinaysa khayrka ficliyan waa inaa u jeclaysiisa ee uusa afka kaliya ka ahayn sida dadkeena soomaalida qof kasta markuu khudbaynayo uu wax kastoo fiican sheegayo laakiin ficilkooda uu ka duwan yahay marka siyaasad ummadda khayrka jeclaysiinaysa siyaasad ummadda ficilkii wanaagsanaa ku sugaysa siyaasad sharti ka digaysa siyaasad fasaadka iyo musuq maasuqa ka digaysa siyaasad qabanaysa qofkii daalimka ah siyaasad qofkii sharta dadka ugu yeera dabar goynaysa siyaasad qofkii dambiilayaashii qabanaysa siyaasaddaas haddii aan la helin dowladdu waa ku daciiftaa waa ku duntaa waddankaasina waa ku qaraaba oo ku baaba-a siyaasaddaas saxda ah ee go-anoo xoogga leh ee fiican ee wadada niyadda fiican leh waa siyaasadda ummadda khayrka u xaqiijinaysa waa siyaasadda waxa weeye uu madaxweynuhu meeshii adayg u baahan adayg la qaabilayo meeshii jileec iyo naxariis u baahanna uu jileec la qaabilayo jileecana uu hormarinayo markii meeshiisii dacwo xasanaa adacwat alxasana iyo mawcidat alxasanana uu hormarinayo ciqaabka uu ka hormarinayo marka hore ilaa loo baahdo marka waa waajib marka qofka madaxda inuu ka fakaro ummadda diinkeeda inuu hagaajiyo maxaa yeele diinka oo la hagaajiya dunyaduna ku hagaagtaa waxaana arrintaas ugu kaalmaynaya in qofka madaxweynaha ilaahay dartiis ay hawshaas ka tahay ilaahay inuu tala saarto inuu khalqiga u ixsaan sameeyo alixsaan ila alkhalqi binnafci walmaal inuu ummadda anfaco hanti ku anfaco dhaqan wanaagsan ku anfaco ummadda haddii la anfaco waa ku jeclaanayaan iyo inuu ku samro dhibkooda iyo waxyaalaha ka imaanaya haddaba waxaa jira siyaasaddu waxyaala qawaacida oo ay ku aasaasan tahay qawaaciddaas hadda magacyadeedaan sheegaynaa laakiin mid kasta waa mawduuc gooni oo ballaaran qawaaciddaasi waxa weeye siyaasaddu ay ku aasaasan tahay ama ususu siyaasa alsharciyati alcaama ususta ama aasaasyada guud ee siyaasadda sharciga ay leedahay waxa weeye waa alqawaacid alasaasiya alatii tubnaa calayha dowlat lislaam waa qawaacidda aasaasiga ee dowladda islaamka ah lagu dhiso wayustalhamu minha annahju siyaasiyu lilxukm oo yani oo manhajka siyaasiga xukumkana laga qaadanayo aasaaska koobaad waxa weye siyaadatu shariica waa in shareecadu ay tahay waxa wax lagu xukumayo waxa wax hogaamiya waa inay tahay in ilaahayna qur-aanka intaasoo meelood ayuu ku tilmaamay hogaanka shareecada ilahay wuxuu leeyahay wamaa kana limu'minin walaa mu'minatin ida qada allahu warasuuluhu amra an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim waman yacsi allaha warasuulahu faqad dalla dalaala mubiina ilahay wuxuu leeyahy qofka muuminka oo ninka muuminka iyo gabadha muuminada midkoodna khiyaar uma leh wax ikhtiyaara ma haystaan marba haddii ilaahay iyo rasuulkiisu ay arrin xukmiyaan ayagu ikhtiyaar ma leh waa inay raacaan wixii ilaahay subxaanahu watacaala ay xukmiyeen ayado badan ayaa ku soo arooraya ilaahay subxaanahu watacaala marka inuu kitaabka uu noo soo dejiyey in uu aasaas u noqdo xukumkeennu waa waxaa la iska rabo lana barto lana soo saaro dad shareecadii yaqaana siyaasadii yaqaana ee aan la helin yani dad oo shareicadii kitaabka inta barta aan yani wacyiga ku dabaqayn iyo dad oo maaragtay aanba kitaabka xiriir la lahayn ee ayaguna raba waxa ay maadiga ah barteen kaliya inay nolosha ka dhigaan marka xaakimiyada shareecadeenna ayaa iska leh caalamkan xaakimka shareecada ilaahay ayaa sida saxda ah loola noqonayaa ثuma jacalnaaka calىa shariicatin min almr faاtabichaa
walaa tattabic ahwaaءa aladiina laa yaclamuun uu ilahay leeyahay waxaan yani shareeco aan kuu yeelnay inaa nabigana waxaa laleeyahay raac ha raacin kuwa aan waxba garanayn hawadooda ha raacin. marka ibnu jariir markuu fasiraya ayaddaas wuxuu leeyahay fattabic tilka shariica alatii jacalnaaha laka shareecadaas aan kuu yeelnay raac walaa tattabic maa dacaaka ilayhi اljaahiluun waxa ay kuu yeerayaan dadka jaahiliinta ah aljaahiluuna biاllah ilahay ka jaahila aladiina laa yacrifuuna alxaqa min albaaطil aan xaqa iyo baatilka kala garanayn fatacmaluu bihi fatahlik in camilta bihi yani haddaad ku camal fashid waa ku halaagsamaysa. marka mar kasta oo shareecada la ag marana waa noo imaan doontaa dhibaatada ummaddu ku dhacdo. marka qodobkaas adugu meel gooniya u faahfaahin doonaahe in oo shareecadu ay tahay waxa lagu dhaqmayo. imaamku marka qofka madaxdahi xaq waa u leeyahay inuu masaa'il soo istimbaadsado oo markaas masaa'il iyo axkaan uu kala soo baxo kitaabkii oo markaas yani aan hadda caddayn, laakiin waa in masaa-ishaasi ay ku salaysan taho o aysan khilaafin kitaabka iyo sunnada iyo qawaacidda caamka ah waa inaysan khilaafin. haddii ay ka baxdo baadilay noqonayaan. marka laakiin kutubta faraha badan oo fiqiga ah asiyaasa sharciya ku qoranba waa kutub masaa-isha inta badani ay mustanbado tahay min alqur'aani wasuna qur-aanka iyo sunnada lagala soo dhex baxay. marka haddii madaxweynuhu uu go-aamada qaarkood uu ku saleeyo ama uu qodobo qaato laakiin qodobadaasi ay ku salaysan yihiin diinta aysan ka hor imaaneyn wax dhiba maleh. laakiin waxaa shardiya qodob kasta oo uu maaragtay samaynayo oo wuxuu qaadanayo an yarjica ila ahli الاkhtiصaas wاlkhibra waa inuu dadka ikhtisaaska uleh uu ula noqdaa waxaan saxnimadkooda iyo saxnimo la-aantooda oo maalan ba culamadii uu ula noqdaa wixii dhaqaalaha dadkii dhaqaalaha ku takhasus ula noqdaa wixii caskariya kuwii ku takhasusay wixii caafimaada kuwii ku takhasusay yani waa inuu madaxweynuhu kala dadkaas uu ku saleeya wixiiba markaas nas aan ku caddayn waa inuusan isagu go-aankiisa inta iska gaaro uusan shareecada uga boodin uusan iskaga socon ummaddana ugu halaagin. asaaska labaad waxa weye ashura shareecadeenu waxay fartay wadatashi wax leedaha maadaama wixi ay yihiin masiir iyo aayo ummadeed. aayaha ummadda qofku keligiis hadduu iskaga socdo waa gafi karaa, hadduu gafana maxaa imaanaya in ummadda dhan dhibaato weyn ay soo wajahdo. markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala ummadeenna wuxuu ku ammaanay wa amruhum shuuraa baynahum in arinta amarkooda uu yahay shuuro iyo wada tashi. marka qofkii madaxda ahaa waa inuu dadkii culummada la tashado oo naasixiinta ahaa oo sida runta wax ugu sheegayay dowladda iyo ummadda u khayr miirayay aan ku raadsanayn yani talada ay madaxweynaha siinayaan inta u mujaamaleeyaan ayagoo isleh yusakis idinka goosan ama waxa idin siiyo. waa in uu dadka ilaahay dartiis kaliya kula talinaya ayagoo damac kale aan wadan ayadoon koox aan uga soo horjeedin waa in uu maaragtay kuwaas kala tashada. qofku haddii uu damac wado oo uu asagu markaas dan wato cadaalad kuma run sheegi karo. waxa weeye wuxuu rabaa madaxweynaha inuu ku ammaano wejigiisa oo yidhaahdo madaxweynihii wax ka qaldan yihiin ama qodob halisa kala tashaday inuu yidhaahdo sida aad ku socotaa fiican. marka taasina khatar weeye ilaahay dartiisna ma noqon karta taas. asaaska saddexaad ee siyaasaddu ku salaysanta waxa weye alcadl cadaalad in la helo. cadaaladdu waa sifada jaamicada ah ee risaalada samaawiyada oo dhan kulminaysa ee ilaahay subxaanahu watacaala ambiyadii oo dhan la soo diray sida ilaahay uu ku leeyahy qur-aanka laqad arsalnaa rusulana bilbayinaat waanzalnaa macahum alkitaaba walmiizaana liyaquuma annaasu bilqist. waxaan soo dirnay rususheeni xujooyin cadcadan la soo dirnay waxaana la soo dejinay kitaab iyo miisaan dadku si ay cadaalad ugu istaagaan. ina allaha ya'muru bilcadli wاlixsaani waitaa'i di lqurba. ilaahay cadaaladda in badan ayuu qur-aankiisa ku farayaa waana cadaaladdu waxa makhluuqu isku raacsan yihiin muslin iyo gaal. waxa weeye waxa oo dowladi ku salaysami karto ama ummadi ku jiri karta weye. waa waxa haddii la waayo aan jiritaan uusa sii jirayn. qofna ruksad uma haysta cadaaladda laa min qariib walaa min baciid. qof oo marna waqtiga barwaaqada iyo waqtiga dhibaatada cadaaladda mar la ogol yahay qofku inuu ka bayro ama shay uu cadaaladda inuu uga tago lama ogola. markaas mar kastaba cadaaladdu waa shay oo muhima oo asaas u ah nolosha. marka meesheedana ku faahfaahin doonaa. masdaru sultaad haddaba waa xaggee meesha oo yani xugumka lagala soo baxaya.
kow marka koobaad waxaa noo imaan doontaa in madaxweyne in la samaysto ay waajib tahay sharciyan, ayna noo imaan doonto wadooyinka lagu dooranayo madaxweynaha. laakiin madaxweynahaas markii la doorto kabacdi fahuwa mukalafun bishariica, shariicada mukalafun biaxkaami shariica, shariicada axkaamteedu mukalaf ku yahay, meelna ogama bixi karo. meesha uu suldaadkiisa kasoo qaadanayo waa shareecada islaamka. waxa weeye wixii xalaala ayaa iyadu ka qaadanaya, wixii xaaraama tan ay xarintuu ka tegayaa. mas-uul ayuuna ka yahay sida qof kasta oo muslima shaksi uu mas-uul oga yahay ayuu amaama allahi shareecada inuu u raaco mas-uul oga yahay, iyo ku dhaqankeeda iyo dhaqangelinteeda. maxaa yeelay asaga in la adeeco ayaa waajiba madaxweynihii. waxa lagu adeecaya marka waa inay yihiin raacitaanka uu raacayo ilaahay subxaanahu watacaala wuxu uu jiday. haddii madaxweynuhu uu dulmiyo dadka, waxa weeye hadda raacitaan ma imaanayo, oo waxa weeye waxa ugu horeeya in ummadda dhan qalbigooda ay ka nacaan. qiso yaraan rabaa inaan muxaadaradeena kusoo qatimo si aan madaxdu aysan khalqiga u dulmin ama ummadda u dulmin. waxaa imaamulmawardi kitaabkiisa adab uddiin wadunya uu kusoo guurinaya ninkii la dhihi jiray haarun rashiid oo madaxweyne islaamka xilligaas ahaa ayaa wuxuu xiray ninkii la dhihi jiray abulcatahiya. markaas ayuu abulcatahiya xabsiga isagoo ku jira ayuu gabay derbiga ku qoray, oo wuxuu ahaa gabaygaas: ama wallahi ina dulma shu'mun wama zaala almusii'u huwa adhaluumu ilaa dayaani yowmi ddiini namdi wacinda allahi tajtamicu lkhusuumu sataclamu fi lmacaadi in iltaqayna gadan cinda almaliki man idhaluumu. wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartaye dulmigu waa baas, waa dhibaato, waa xumi. qofka dadka xumeeyaahina weligiis inuu daalim yahay dulmi badane kama zuulayo. allaha maalinka qiyaamo dadka abaal marinayaan aadi doonaa, u tegi doonaa. beri ayaana alla agtiisa ay dadka doodayaahi oo ishaystaa ku kulmi doonaan. waxaad ogaan doontaa markaan ilaahay subxaanahu watacaala la kulanno maalinka qiyaamo, alla agtiisa markii aan ku kulanno man idhaluum. haarun rashiidow madaxweyne ahow, laakiin markaas ayaa ogaan doontaa qofka dulmi badanaha ah inaa anigu ku dulmiyey oo aan qalad kaa galay, iyo ina idulminayso gardaro aad xabsi ugu dhigtay. marka waxaa haarun rashiida loo sheegay aad ayuu u ooyey. markaasuu u yeeray oo icaf yiri, hantina waa uu siiyey, waana iska fasaxay. marka meeshaas waxaan uga jeedaa maadaama siyaasadda aan ka hadlayno, waxaa laga yaabaa dadka madaxda dad badan oo masaakiina in lasoo xaabiyo, xabsiga la dhigo, kuwa dadka dulmi lagu soo xiro, kuwa ayba dembiilayaal yihiin laakiin aan la xukumayn, aan waxba la weydiinayn. waa arki doonaa shareecada islaamka qaadiga marka la doorto waxa ugu horeeya oo qaadigu inuu fiiriyo ay tahay waxa weeye waa dadka xiran. maxaa yeele xorriyadoodii oo dhanaa laga xabisay, noloshoodii iyo ahalkoodii laga xabisay. marka waa in aan dadka la iska soo xiran. haddii tuhma gashana in la baaro cadaalad la sameeyo, la xukumo iyadoo lagu salaynayo cadaalad. laakiin dal la iska soo qabto, nin jeclaysi loo xiro, shaqaalahaaga iyo dadka kugu hareereysan qofka ay nacaanba xabsiga ay dhigaan, iska basaasaan. waxaasoo dhan qiyaamada ayaa mas-uuliyadda qaadaysa. qof kastoo madax ahow, madaxdaas ha ahaata madaxweyne iyo ilaa wixii ka hoosey, qof kastoo meel yar hayow, qofkaad dulmi ku xirtid ama aad ta iska xirtid aadan xaqa u leeyahay aada siin iyo gartu leeyahay ku qaadin, qiyaamo ayaa hawshiisu weynaanaysaa. ilahi waxaan weydiisanaynaa inuu dowlad caadilana siiyo, ilaahay madaxda inuu hagaajiyo, xaqa tuso, annagana shacab fiican uu naga dhigo. shacab fiican ayaa dowlad fiican u qalmee. intaas casharkeena ku koobinna. wabillahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.